garaad bixi karaa ma jiro garaadkii baxa isaga iyo reerkiisu waa reerka dadka iyo dhibaatada u horseediyay way assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh baaq shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay Somaliland in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka SSC Khaatumo ee ku salaysan nabadda iyo daris wanaagga ayna kala baxdo ciidamadeeda ku sugan deegaanada SSC Khaatumo si shuruud la'aan ah waxaan ugu baaqaynaa isimada culimada uqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer Sheekh Saxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada Somaliland deegaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka Somaliland ka geysatay 15 sanadood ee la soo dhaafay deegaanada SSC Khaatumo shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in ay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xiriiraan wixii khuseeya danaha SSC Khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada SSC Khaatumo gunaanad shirka waxaa lagu doortay gole hoggaan oo ka kooban 45 xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha SSC Khaatumo waxaanu soo dhaweynaynaa wadahadal kasta oo nabadeed haddii Somaliland ciidamadeedu si buuxda ugala baxdo deegaanada SSC Khaatumo qodobada ka soo baxay shirka ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo waa qodobo la isku raacay laguna midaysan yahay waxaa wax lagaga bedeli karaa oo keliya kuna ay u dhan yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah isimada iyo uqaasha beelaha SSC Khaatumo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada gole ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay gudoomiyaha midowga Afrika AU xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta dowladda xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD safaaradda shisheeye ee ku sugan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya bayaanka lascaanood waxa weeye taariikhdu waa 6 bishii February 2023 sida bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamku la socdeen waxaa 15 sanadood ee la soo dhaafay ka jiray deegaanada SSC Khaatumo dhibaatooyin badan oo ka dhashay joogitaanka sharci darrada ah ee maamulka Somaliland arrintaas oo keentay kacdoonka shacabka ee ku aanbaxay kacdoonka buluugga ah ee ay dadku ku diidan yihiin in lagu qasbo gooni-goosad aysan doonayn xasuuq isirsifayn ah shirqoollo lagu beegsanayo haldoorka deegaanka la dagaalanka iyo curyaaminta dhaqaalaha deegaanka ilaa la gaarsiiyey reer hay'adaha caalamiga ah laga hor joogsado deegaanada SSC Khaatumo intaas waxaa dheer xadhig jirdilka iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada SSC Khaatumo ee aan ogolayn kala goynta dalka sababtaa darteed waxaa magaalada Laascaanood 28 bishii koowaad 2023 oo soconayay ilaa maanta oo bishii 6 tahay shirweyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada uqaasha culimada aqoon-yahanka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wadahadal dheer iyo wadatashi iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan number 1 waxaan caddaynaynaa in aanan sinaba uga mid ahayn Somaliland wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka Soomaaliya 2 deegaanada SSC Khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed number 3 shirweynaha beelaha SSC Khaatumo wuxuu caddaynayaa in deegaanada SSC Khaatumo lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya number 4 tan iyo inta la dhamaystirayo ka tashiga deegaanada SSC Khaatumo si waafaqsan qodobka 49 ee dastuurka ku-meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada SSC Khaatumo si toos ah u tagto dowladda federaalka si waafaqsan
qodobka 48 farqadiisa labaad ee dastuurka ku-meelgaarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. lambar 5 waxaan caddaynaynaa in aanaan ahayn argagixiso deegaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii deegaanka lahaa oo ay Somaliland si gardarro ah ugu soo duushay. isla markaana waxaanu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada deegaanka iyaga. sidoo kale waxaanu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo deegaanada deriska ah. lambar 6 dadkii lagu laayay muddadii 15 sano ahayd ee maamulka Somaliland ka talinayay deegaanada SSC Khaatumo waxaanu u aqoonsanahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas'uul ka ah maamulka Somaliland. isla markaana waxaan caddaynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabeen imaatinka Somaliland.